ugu sameeyay gegida diyaaradaha ee magaalada Muqdisho madaxweynaha maamulka kumeel gaarka ee Jubba ayaa waxa ka soo qayb galay xubno wasiiro oo ay ka mid ahaayeen wasiirka arrimaha gudaha iyo ammaanka qaranka ee dawladda Soomaaliya warfaafinta gudoomiyaha gobolka Banaadir saraakiisha ciidamada xubno xildhibaano ah iyo ururka haweenka qaranka iyo koox qaabilsaneed ciyaaraha hidaha dhaqanka Soomaaliya أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي أي سفر كيس وحى كوهلي مدحويني كحجينكا iyo afyeenka maamulka Jubba Ahmed Madoobe ayaa markii ay soo cagadhigatay diyaaradii ay siday waxa uu gacan qaaday madaxdii dawladda Soomaaliya isagoo intaasi kadib loo galbiyay qolka nasashada ee garoonka Aadan Cabdulle Cismaan ee magaalada Muqdisho daqiiqado nasashada kadib waxa saxaafadda la wada hadlay wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda Soomaaliya iyo Ahmed Madoobe wasiirka uu ku horeeyay hadalka ayaa waxa uu sheegay in imaanshaha Ahmed Madoobe Muqdisho ay tahay sidii loo adkeyn lahaa heshiiskii Addis Ababa ay dhawaan ay halkaas ay ku kala seexdeen dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Jubba iyo wada tashiyo uu la sameeynayo madaxda sare ee dalka Soomaaliya ujeedada safarkoodana waxay tahay in sidii loo fulin lahaa heshiiskii magaalada Addis Ababa ee ku saabsanaa gobolada Jubbooyinka si ambaqaadkiisii iyo hirgelintiisii si uu wada tashiyo ولا يشاسقي وفديسة حكومة dadka ka soo jeeda gobolada Jubbooyinka ee ku nool magaalada Muqdisho jooga arinta ayada ujeedada iyo safarka uu ku yimid hogaamiyaha maamulka gobolada Jubbooyinka ay ku saabsan tahay aad iyo aad ugu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho oo caasimadiisii oo magaaladiisii waxaa jiray hakad u dhaxeeyay dawladda dhexe iyo waliba maamulka kumeel gaarka ee Jubba oo dhinaca wada shaqaynta ahi ayagoona in muddo isdiidana Ahmed Madoobe ayaa sheegay in hakadkaasi uu haatana uu meesha uu ka baxayo isla markaana ay si adkeyn doonaan heshiiskii u dhaxeeyay maamulka Jubba iyo dawladda federaalka Soomaaliya waxaan u nimid booqasho aan ku dhamaystirayno wada hadalkii ama heshiiskii ka dhacay Addis Ababa inaan dhamaystirno qabyatiro ma kaliya inaan wada hadalkii u nimaadno caasimadayadii iyo dawladdanadii oo joogto socodkan uu ku badnaan doonaa laakiin hadda wejiga hore waxaan ugu magac bixinaynaa dhamaystirka wixii lagu heshiiyey iyo xidhitaanka faylkii Jubbooyinka ee ka furaa Muqdisho dawladda uu wasiirka arrimaha gudaha ka yahay walaalka Cabdikariim ay shaqadeedii oo dhan hakad gelisay annagana waxay hakad gelisay inaan kiiska horta intaan iska laabno shaqo kale u dhaadhacan waxaan inta ay wehelisa waxaan rajaynayaa heshiiskan iyo waxqabadkan iyo talaabadan hadda qaadaynaay inay noqoto mid Soomaaliya guud ahaan waxtar u keento wafdiga Ahmed Madoobe ayaa loo galbiyay hoyga ay ka degayaan gudaha caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ayagoona inta ay joogaan gudaha Muqdisho wada hadallo iyo waliba kulamo ay la qaadan doonaan ummadda ka soo jeeda gobolada Jubbooyinka iyo